يا ريح بي يا ريح يا ريح بي يا ريح محل ريحة يا ريح محل ريحة يا ريح بي مالته يا ريح يا ريح يا ريح yaa riixay b oo keentay barta fasahaadka ee TikTok-ga ma dhabbaa in ay arrintaani tahay mishin loo isticmaalayo in lagu waxyeeleeyo bulshada dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa ka jiro in uu mashruuc yahay barnaamijkani ee yaa riixay b labadii maalin ee u dambeysay waxaa tuulada dadka qaar ay ku waasheen ee loo yaqaano baraha bulshada qabsaday mid ka mid ah hees uu qaaday qaarka dambe kaniikiya ama si kale haddii aan u dhigno lagaroonaha aan cad goosan karin ha yeeshee si uu fikirkiisa iyo ficiladiisa u gaarsiiyo dunida ay ku nool yihiin dadka isaga la midka ah ee aan suxulduubka dheeli karin ayaa waxa uu soo qaaday hees badi macnaheedu ka turjumaya khaniisnimada iyo waxqabasho la'aanta laakiin dhalinyarada ka xamaasha suuqa ee softwarekiisa loo yaqaano TikTok-ga ayaa bilaabay in mid kasta uu soo qaato ereygaasi oo aysan micnihiisa fahansaneen yaa riixay b laakiin waxaa la yaab ah dadka Soomaalida waxay isticmaalaan waxyaalaha ay arkaan ama ay maqlaan ayagoon tixraacin micnaha dhabta ah war sheergareeya muuqaalka waa kuwaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee caanka ka ah bartani TikTok-ga oo isticmaalaya ereygaasi yaa riixay b oo dhowaan qabsatay baraha bulshada يا ريح بي يا ريح يا ريح بي يا ريح محل ريحة يا ريح محل ريحة يا ريح بي مالته يا ريح يا ريح يا ريح من عوان يا ريح بي نيو يا ريح بي نيو يا ريح يا ريح كم صور سنيو يا ريح نيو الفيديو كان طوب يا ريح يا ريح يا ريح بي يا ريح فيديو كان طوب يا ريح بي نيو يا ريح وحري حدا كنت على الفيديو يا ريح يا ريح الروك لو فيديو دورتي يا ريح نيو يا ريح ما الفيديو كان طوب يا ريح يا ريح يا ريح يا ريح فما سنتي وحري ريحة وحري ريحة يا ريح يا ريح نيو ayaab arkay sida anigoo kale milli soo qor ayaa riixay mise waa keligay video kasta aan dhigay yaa riixay yaa riixay yaa riixay yaa riixay yaridinka yaa riixay badanida yaa hooy midkii dambe yaa riixay dambe ii soo qoro blog saara ar video dambe asoo yaa riixay ku soo qor walaashaa riixdana ina adeer dadkan habaarku ku dhacay ee biida riixay waayo yaa riixay biidan calaamay qaban dadkan biida riixay biidan yaa riixay meel walba biyaa riixay yaa riixay maxaa loo riixay biidan ma barteedii loo dayay beerka faaraha la idin dhigay ma barteedii aad u daysaan biidan maxaad u riixdeen inaad dadkan idin barana horta war biidan maxaa idin geeyay miyaa taabataan dad wax riixaysaa yaa riixay maxaa loo riixay biidan war sheergareeya muuqaalka waxaa aad u la yaab ah dadka Soomaalida ah ee waxa walba loo keeno inay isticmaalaan ayagoon ogeyn micnaha dhabta ah ee loola jeedo waxaa kaloo jira arrimo la yaab ah oo Soomaalida isticmaala kuwaasi oo laga keenay diimo iyo dhaqamo xunxun ee ay isticmaalaan dadyowga caalamka war sheergareeya muuqaalka yaa riixay b oo heesta ku jirtay ee uu qaaday ninkaasi lagaroonaha ah ayaa ereygaasi ahaa luuqadda Ingiriiska oo ay ahayd who bush b taasi oo dhalinyarada Soomaaliyeed u bedeleen luuqadeena hooyo halka dadka qaar ee arkay ereygaasi ay isticmaaleen ayagoon helin macnaha dhabta ah ee loola jeedo bal nala daawade muuqaalka ama heesta uu jeeb gadaalkani soo qaaday war sheergareeya muuqaalka si uu u gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed si ay u ogaadaan micnaha dhabta ah ee yaa riixay b si aysan mar dambe u adeegsan ereygaasi aadka u xun ee aflagaadada iyo isnijaasaynta ah halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaa warbixintana maanta aan uga hadalnay ereyga yaa riixay b ee dhowaan qabsatay baraha bulshada intaan warbixintan tiis kale aan ku kulmi doono waa dhammaantiin idin leh waqti wacan iyo waaysan